xilli si weyn uu saameyn ugu yeeshay dunida caabuqa coronavirus. Dowladda hoose degmada Laascaanood oo ka duuleysa ka hortagga caabuqaasi ayaa waxay agab farxad dhigtay goobaha la isugu yimaado oo ay ka mid yihiin masaajida, goobaha caafimaadka, suuqyada, ganacsiga iyo xarumaha dowladda. waxaana hormuud ka ahaa barnaamijkan duqa degmada Cabdicasiis Maxamed Darwale iyo xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdiqadar Gaas Maxamuud. waxaana kaloo ka soo qayb galay daahfurka barnaamijkani gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool. maamulka dowladda hoose wuxuu soo diyaariyay agabkan halkaad ku aragtaan, marka qof walba inuu ku faraxsho oo nadaafadiisana ilaaliyo baa loo baahan yahay. marka fariintan dirayna waxa weeye wacyigelin dadweynow nadaafadiina ilaashada, dadku yaana isku badan oo muxuu ahaa yaana dhowr qof ka badan si xanuunka Ilaahay baa hayaan iskaga yareyno. marka barnaamijkan waa wacyigelin waxaan fulinayo kala amarkii guddiga qaran ee ka hortagga corona madaxweynuhu magacaabay awaamirtooda fulinayna in dadku aan isku soo badan, in dadku ay kala yaraadaan, inta cudurku ku jiro waad garan kartaa. wadamada dariskiina waa laga helay. marka dhamaantii waxa leenooga baahan yahay inaynu taxadirno. dhakhaatiirtu awaamirteena oo soo jeedinaysa iyo guddiga muxuu ahaa ka hortagga corona aynu sidoo u qaadano in ciyaar inaga noqon. aad iyo aad waa mahadsantihiin. halkan maanta waxaa la dhigay ka hortaggii koowaad ugu horreeyey ee laga hortagayay cudurka coronavirus iyo jeermisada kale ee faafa. xabadii koowaad maanta halkan la dhigay goobo fara badan oo kale oo dadka bulshada isugu timaado oo goobaha muhiimka ah haday tahay kuwa wax lagu barto iyo kuwa kale bulshada isugu timaado dhammaantood waa la wada gaarsiinaya, waa la wada geeraya. tanoo qura kuma eka, intanoo gaariga saarana kuma eka. hadda waxaa la sabaa 10 xabo, dhowr 10 xabo oo kale la soo sameynayna waa yaalna. waxaan arkaynay in dhaweyd baraha bulshada waxaa haystay dacaayad la dacaayadeynayay ka hortagga nadaafadda laga hortagayo xanuunka coronavirus. waxaan leenahay ninkii iska hadlaaba iska hadlo, ninkii dacaayad wada maartay idina war indhaa dhaamalay. waxaan arkaa qof la dagaalamaya caafimaadka dadka iyo waxyaabaha laga hortagayo cudurrada kale faafaba kan iyo kuwa kale jira. maxamedow runtii sidaa uu sheegay barasaabka gobolka ikhtirac cusub iyo fikrad cusub oo aan ka jirin Soomaaliland si guud runtii iyadu keentay sharaf bay noo tahay ka soo qayb galnaa hawlaha qaran ee dawladda hoose marka hore ugu nimi ku jirnaa. inagu ummad muslim ahayn, ummadeena muslimka marka horeba 5 jeer ba maalintii la farxashaa oo islaamkuna faray inaynu salaada ku tukano. marka ay markan tan way sii xoojinun fikradaha noocan oo kale waxaan leeyahay wixii dawladda hoose oo kale ee qaranka oo dhammaan ka faa'iideystaan baa muhiim ah. degmada Laascaanood runtii in badan laga heli jiray xaggeeda ammaanka iyo aad baan idin salaamayaa. dawladda hoose degmada Laascaanood oo uga mahad celinayna runtii barnaamijkan hal abuur kale ay fikirtay. waana barnaamijkan doono guud ahaan Soomaaliland oo dhan inuu gaadho oo dawladda hoose kalena ay wax kaga daydaan runtii ikhtirac ah. sida maayirku sheegay run ahaantii inagoo fulina awaamirtii iyo go'aamadii ka soo baxay guddida heer qaran ka hortagga xanuunkan iyo badbaadinta shacabkeena coronavirus COVID-19 loo yaqaano madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo magacaabay. baan doonaynaa inay heerka u gaarsiiyo. marka insha Allah taala waxaan doonaynaa inaynu waxaan leenahay falxalku wax walba isaga ka muhiimsan. marka bulshada gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxaan ka codsanaynaa falxashaan. halku dhigeen waxa weeye hal falxasho. Cabdi Fataax Maxamed Cabdi, telefishinka Saab, Laascaanood.